نشيخ بري قسم وغشيكي حويري من عالمة أو أرضيد أبو جعلان حرتها أبو جعلي إيش كذا حرت المجتمع ونم أبو جعلان أخلاق ونكسن بإلى هيسي تقبض بإلى هيسي علم بإلى هيسي الله كعبس بإلى هيسي لكن إنك وحي إلى هيك وهجاجية إسلام كل وضبيعات أذن ومركو أنت ومقالة سعودنا كبيه سينو قاتل الله ما أقوله مسألة كنت كان ينو قاتل الله ما أقوله أقل كمركو قالنا إسلام تكون شقيسة دريبو كريم بيهو دامن دبكو شدي إيدا دبو عطا سيسين مركاسي أورانا إسلام مقالة الشيخ بيكو حيستايا أنا قلت هذا الشيطان باته يخدمه بأورانا هذا الكاكيني ما يأخذ منه وخدمة يا أونا ما الله مش يكيو أول أقل كجوديه سي كدر درنجر تبع لي مركيد ما واحد كتري أنا هديت ولوان ده لحابة ده يصقرو بيهنا عيلك يصور دام عيلك نك الشيخ أنا وانك مجالده كبيه سئنه قاط وما أقول جعله احترام أيوة قبع مركز سوير إله هو يستر إلا هديل له وجاد الشيخ حابة قراية وبيهنا دامنايا dadku waxay oranayaan war sheekha aqalka dib baa ku haysateen karqabtadan waa maxay sheekha dirat walla habaarka ku dhici taabo marka uga baqayaayo wuxuu yiri ilaahow miskiinta aadi xaaska aadiga dhigtay umul ciyaalka ilaahow hay ugu hoojina maanta igu asto magaaladii buu ka baxay ardaydii buu muraad yar baan leeyahay iska hadhay buu marka xaabadii buu soo guray dhul cilmi u tagay xaabadii buu soo guray meel buu ku ururiyay biyihii buu dhaamiyay إلهو أني إسلام تاس إلهو إسلام تاي أمضى كلا إله لبوي لباح سعود باوي مدور غرفة رسالة بالشيخ حابدي يقريه بصاري لباحي بيه ندنا عكلو كسو صاري مقالدي والله صوبر الشيخ لباح وط مركز اللي أول بينه مؤمن إلهي كحرا أو كرامة وان أجيرن وهاي ما أنت بكرامة دي سي ظاهر تالي الباب كي وهرب دقي سلامتي بال ما كخاوستو اللي ما حبي عرفت الاف وصوص لا الى هو يقول سوق اللي ما حاس الى هو اللي ما حايبو سوق لي دي marka libaaxi joojistay halkii uu kaga dhaadhicay xaabadii biyihii libaaxi uu iska socday isaga marka xaabadii aqalka soo galiyay biyihii uu soo galiyay marka bay ku tiri dameerka foosha xunna maanta soo rabtay ayaa kugu caawiyay ka tiri nabiga ku salliya inna kayda kunna azim ilaahi ba sheegay sooma hadda way arkaysaa indhaheega ilaahay inuu gargaaray ninkaas ma cadaalika hadana ma sadaqayso waxay kula war dameer fool xuma wata maanta xaga ka kayt iska aamusay marka muddo yar kadib islaantii baa ka dhimatay sheekhi maadaama islaantii ka dhimatay iyadoo aanan la ogaan dhibta isaga ay ku hayso dadkii magaaladii baa isku tagay waxa la war sheekha gabadh wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan oo xaaskiisii hore kale lamida waa in loo doondoonaa gabadh wanaagsan baa loo keenay oo sheekha qadarkiisa garanaysa daana ma aragtaanay markaas haye aqalkii baa loogu hooyay de waxay tiri way ogtahay sheekhu inuu libaax soo raran jiray ma ogtahay iyadna waxay leedahay sheekhu libaaxiyo wuxuu soo rari doonaa iyo ma aragtaanay libaaxi baa biyaha xaabada ku keeni doona de markaa bada sheekh xaabadii iyo biyaha way naga dhamaadeen markaas dhib male iska fadhi insha Allah ilaahay baa noo keeni dooneen dhulkii uu tagay libaaxi ma iman markaas isagii baa markaa ay noqotay inuu xaabadiina soo guro biyihiina soo qaado markaas magaalada la soo dhex maray waran inkaar qabtada sheekha aanu dhisnay ee sheekha rartay maxay ahayd oo sheekh libaaxiina may baa lagu yiri wuxuu libaaxi islaantii hore iska lahayd nabiga ku salliya akhlaaqda Allah ayna siiyay naka yani qisadaas waxaan u soo qaatay haddii akhlaaq wanaagsan aad leedahay dadka ugu xaq leh inay arkaan waa dadka guriga jooga Aisha radiyallahu anha baa nabiga la weydiyo lagu yiri nabiga akhlaaqdiisa ka waran baa lagu yiri aqalka markuu joogo sidoo ahaa marada ka go'go'day buu nabigu karkaran jiray tiri kabta ka go'dana isaga gacantiisa ku tolani jiray
neefkiisana isagaa maalan jiray annakana aqalka dhexdeeda adeeg waxaan u baahanay buu noo qaban jiray tiri laakiin salaadu hadday gaadhay tiri caaisha nabigu salaadu uu soo bixi jiray bay tiri ninkee baa maanta odhanaya intuu xaaskiisa ku yidhahda iyo hablihiisa aabba bal maanta nasta anaa dhariga inii karana muu jiraa aniga maanta dhari karinta igu daaya ma dhici karto waxaaban u aragnaaba ihaano inay tahayba inuu ninku reerkiisa u khidmeeyaa uu xaaskiisa u khidmeeyaa uu ubadkiisa u khidmeeyaa uu noqdaa nin adeegayo akhlaaq wanaagsan waxaan u aragnaaba nin doqonoo islaamtu ay ka adag tahay inuu yahay khuluq akhlaaqda nabigeena calayhi salaatu wasalaam qofkii ugu horreeye ka markhaati kacay akhlaaq wanaagiisa waxay ahayn xaasaskii rasuulkeena u naxariis badnaa u dhibrin badnaa marka qiyamkaa wanaagsan buu nabigu mujtamaca la dhex marayay mujtamaca reer madiina wala fiirso inan dhalinyara ka kacay masjidka dhexdeeda gacantuu taagay yaa rasuul allah ani zinada ha lay fasaxa buu ma dayn karaye wallahi inna lillahi war maxa markaa buu nabigu ii daayay soo dhawow hala walaalama kula dhasheen haa way la dhasheen gabdha walaalahay way la dhasheen gabdhaha walaalaha ayaa kula dhashay in xumaanta lagu sameeyo ma ka raalli tahay markaasuu may waan ku dul dhiman buu habaryar ma leedahay haa waan leehay habaryaraha in waxaa loola taga ma jecesha aad doonaysa inaan kuu fasaxo may waan ku dhiman buu dhimashaan ka aqaana markaa aad tiri ii fasax zinada kaba soo qaad haddii zinadii laguu fasaxo ta aad ka zinaysan raggaa halkaa fadhiya unbay ama walaal ugu toosan tahay ama eeddo ugu toosan tahay ama habaryar ugu toosan tahay sida adiguba haweenkaaga aad xumaantaa raalli aad ugala ahayn ayakuna xaasaskoodii iyo dumar iyo hablahooga iyo qaraabadooda gabdhaha qaraabadooda in xumaantaa loola taga iyakuna raalli kalama aba ku yidhi rasuulka markaa yaa rasuul haddaba ii ducee markaa buu nabigu soo dhawow halkaa buu nabigu gacanta u saaray laabtiisa ilaahu qalbigiisa xumaanta uu ku haminayo ka masax farjigiisana ilaali dembigiisana ilaahu dhaaf buu rasuulku yidhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin acraabi nin reer baadiya ayaa masaajidka dhinacaa dambe intuu istaagu kaadidiisii masjidka cawrada intuu la soo baxay buu ku kaadiyey markaabay saxaabadu ku yaaceen markaa buu nabigu yihi dacuuhu dhaafa buu nabigu yihi daaya buu nabigu yihi kaadida ha ku kala goynine meeshuu ku kaadiyey biyo ka badan ku shuba buu nabigu yidhi isagana iigu yeedha buu rasuulku yidhi nin acraabiyo reer baadiya oo magaalada madiina ku cusub oo lacalla laga yaaba inuu u yimid diinta islaamka inuu barto oo xishood weli aanan qalbigiisa xishoodku gelin iimaanku weli qalbigiisa uusan gelin diinta islaamka weli aan waxba ka garanayn waa masjidkii nabi maxamed cawradiisii kula soo dhex baxay kaadina ku tallaajiyey masjidka dhexdeeda ayuu nabigu saxaabadii ku leeyahay dhaafo daaya isagana aniga iigu yeedha meeshuu ku kaadiyeyna biyo ka badan ku shuba markaa buu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam halkani waa masaajid weeyaan waa meel loogu talagalay in ilaahay lagu caabudo keliya bas waa meel daahira salaadaa lagu tukadaa qur-aankaa lagu dhex akhristaa ilaahay baa lagu dhex xasuustaa iyakiina wuxuu ku amray halkii uu ku kaadiyey biyo ka badan ku shuba inamaa bucithtum muyasiriina walam tubcathuu mucasiriin baa nabigu yidhi ummaddaydiyey asxaabtaydiiyey waxaa ilaahay adduunyada u inii keenay inaad ummadda xaqa u dhibrisaane inaad ummadda xaqa ku adkaysaan ilaahay adduunyada iniima keenin buu rasuulku yidhi bashiruu walaa tunafiruu yasiruu walaa tucasiruu bashiruu war ummadda khayrka u bishaareeya buu nebigu leeyahay walaa tunafiruu ummadda khayrka ha ka firxinina ummadda naxariista ilaahay ha ka quusin ummadda infiraar ha ku ridin ummadda khayrka u bishaareeya waxaad tidhahdaa khayr baa inoo soo socdaa zamankani waa zamankii islaamku soo noolaanayey waa zamankii saxwadda islaamigu ay soconaysay qof diin laa la doonayaa qof diin yaqaanaa loo baahan yahay qof dadnimo leh ayaa iman doona in talada ummadda loo dhiibto cid walba ummadda hoggaan u qabani maayo ummaddani waxay qaa'id ka dhigani doontaa ummaddeeda taqaanoo qiimo leh oo ilaahay rasuulkiisa taqaana bashaaree ummadda khayrka u bishaaree waxaad tidhahdaa khayr baa inoo soo socdaa xanuunkan la sheegayo may ilaahay baan haysannaa ducadaa ilaahay noo aqbalayaa sadaqadaa bixinaa ilaahay nagaga qaadayaa ducafaa masaakiina baan nahay ilaahayna dayici maayo ummadda khayrkaa loo bishaareeyaa ummadda wax ka nixiya looma sheego ummadda rasuulka yasiruu walaa tucasiruu fudaydiya buu nabigu leeyahay
hadaad wax sheeg ummadda u fudaydi haddii talo ummadeed lagu dhiibo talada ummadda u dhibri buu nebigu yidhi walaa tucasiruuha ku adkeen ummadda talada ninka ummadayda amar ilaahay ninka ummadayda talo u qabta ee u fudaydiyana ilaahu u fudaydi buu nebigu yidhi ka ku adkayana ilaahu ku adkay buu isaga yidhi mas-uuliyiinta zamankan imaa habaar baa ku dhacaya imaa ducadii nebiga u soconaysa ogow hadday talada ummadda ay adkeeyaanna ilaahay waa ku adkayn iyakana hadday talada ummadda dabciyaanna ilaahay iyakana nolosha waa u dabcinaya mas-uuliyadda ilaahay u dabcinaya ilaahay baa garabkooga galaya wa ilaa haddii kale ilaahay garabkoogu ka baxaya iyakana marka dariiqad buu nebigu noo jeexay dariiqatu lxayaat la yidhahdo saad u noolaan lahayd buu nebigu kuu jeexay waddadeedii marka meel kale ha u leexan ayuha almuslim soo noqo ilaahay u soo noqo diintiisa wa ana hada siraatii mustaqiiman fattabicuuhu waa kaa jidkii toosnaa soo raaca la leeyahay toosan yahay waxweecad ma le ilaahay baa raalli kaaga noqon oo nebigiisaa raalli kaaga noqon oo islaamnimada kolkaas sideeda aad u qaadato noloshaada adduunyadiiyo taakhira ku wada hagaagi diintu nolosha way fudaydin lidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam shaksi wuxuu ahaa diinta islaamka isaga lagaga daynayay buu ahaa markaasuu nebigu noola yimid akhlaaq wanaagsan dhaqan wanaagsan dulqaad badan sabir badan adkaysi badan naxariis badan dhibrin badan iska dhex socday dadka ula cunayay iyaka ula fadhiisanayay ula safraayay ula soconayay kii u yimaaday ee la hadla hadduu ka sii jeedo qofku nebigu qoorta ma qalluucin jirin baa la yidhi uu sii wada jeesanayay hadduu nebiga qof gacan qaado qofka oo sii daaya mooyaane nebigu ma sii daynayn baa la yidhi hadduu dad meel fadhiya nebigu u yimaado assalaamu calaykum yidhaahdo 3 jeer buu nebigu salaamta ku celinayay assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah 3 jeer kelmad hadduu ummadda u sheegayo 3 jeer buu nebigu kelmadda ugu celin jiray si hadalka ummadda ay u fahamtay qalbigooga u galo markaasuu diintii islaamka oo dhan buu nebigu yihi taraktukum cala almaxajati albaydaa layluha ka nahaariha laa yaziiqu canha ilaa haalik dabaqad kastoo ummadda aad ugu jirtaa saaad u dhaqmi lahayd shareecadda islaamku way kuu caddaysay raacun bas taajirkii siduu tijaaradiisa u qaban lahaa way ku taallaa shareecaddeena mas-uulkii siduu ummadda xilkayga u gudan lahaa shareecadda way ku taallaa aabbuhu xilka reerka siduu u gudan lahaa shareecadda way ku taallaa ninka dhallinyarada labada waale siduu ula dhaqmi lahaa shareecaddu way ku taallaa jaarku jaarka kale siduu ula dhaqmi lahaa shareecaddu way ku taallaa xaasku ninkeeda siday ula dhaqmi lahayd shareecaddu way noo sheegtay qofka saacad aad wada safarteen saacadda aad la safarteen walaalkaas aad ula dhaqmi lahayd diintu way kuu sheegtay diin dhammaystiran maxaa layna siiyey diin dhammaystiran say diintaa nolosheenna ku iman bay culimmadu leeyihiin waa inaan diinta ka shaqaynaa waa inaan diinta beernaa khayrka waa la beeraa waa laga shaqeeyaa maal lagu bixiyaa waqti lagu bixiyaa dhaqaalo lagu bixiyaa fikir lagu bixiyaa la qayliyaa oon la aamusin haddaad qaylido waa lagu iman haddaad aamustase waa laga aamusa aydu dabeecaddooda habeenka way ciyaan soo jeed mise way seexdaan ya soo jeed aydii baa isku timiday way tashadeen waxay yidhahdeen anigo dadkao dhan habeenkii khalqiga o dhan habeenka waa jiifsadaane way jiiftaan oo xayawaankii xoolihii wix o dhan way hooyanayaane innaka maxaa ina wareejiye waata aydu habeenka way wareegtaan soomadarka salaada fajar markaa ka baxnay seexdaan baa la yidhi habeenka o dhan bay qaylayaan xaggan u kaciy xaggan u kaciy xaggan u kaciy waxay ku tashadeen baa la yidhi khalqiga inay wax la qabaan ay wax la wadaagaan oo habeenka inay iska seexdaan tuug baa markaa ogaatay ayadii inay seexatay tuugtii baa magaalada usoo dhacday ila aygu habeenkii muxuu sheegaa tuugtuu sheegaa tuug walba aqalku ku hagaagayba wax ka dhacay baa la yidhi tuug baa markaa aqalku kusoo hagaagay wuxuu is yidhi kuwan waa fuqaraa waa masaakiin aqalkooga wax ma dhex yaalle urgacan yar
ومدوم دوكمنا أركاية كيش كوريدو أي يرو مركب ماشى الفرديون ده صار له شوري مبتة أي دي معي شوريس الله سيحنا له شوري أي جيب كوري تكيش كان لي بناك يولدك ولا بحال نو ولا بالحالة أي دي بيلاقي نجي فيه والله على شقتك صدق لعب بالذهب بالدر بايد أنا وأقل يرى ضد ضعفاء ومساكين أكو هجاجو أرجع يرمى كسر هلين كيش كي واحد كسر مع أير صوت تعب خسار ما وحناقي وروان تعب خسارة وان تعب خسارة لو يا جعمو كنت بأيدي فأول كم وعلى أيدي يقول لك جبان وقعان جبان أيدي ويمي دوي القرآن كي هبان هورا لك جاري هلا كنا قدوم ده بيقول صليا ومحل لوجن نقوم بالليلو وحيد وحويري قيل ذهبين كي أن قيليني أنا كان الدم بينه هيد ومدنا الدم بيوهيد اسمع أيها المسلم والله حق نجا كأمصاب النبي يقول والشيطان أفلم رسولك باطل كما أنت من البكم مغضى هذا أنا الدعاء نقول إن لم تكن داعيا فتكون مدعوا هذا عدو مدى خيرك أقويرين هذا شرك الله أقويري أقو إن يرنا الله بهاي قيل كنا بدقلينا هذا مستسمية هذا مستعدين والله أمسي مالما تقدم بسنة ومدى خيرك وضع ويران دون تاي أقادا مركاينا دعوة أكعنو قيل دعوة وياه وشغاد دينت علماء كلية أنا كديني عامدينا علماء دلني يردينا أضيدينا تجارتنا فقراءنا شغالهنا مدحدينا مجهنا دين تدال كي قعمها سوق بصنو نيود إن شاء الله ده هذا أريان نيود بالقعان تاتاقو إنه شغال الدين يدو الله أقبل إلهي كدقو الله ينقدقو سو ديار قروبة أنكو خميس بوصاصة نسعنا اجتماعي بوصاصة خميس تدعي دونا أفر بلودي أفرتن جماعة بدل ما رجينا إنا كبح لا بقول جماعة ده إني كنا عاصمة دي وحدين وضن كي سو ديار قروبة جماعة كنا إن شاء الله هذا مستنى